kulanti habboon saaxiibayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Garaad TV. qodobada aan xilligan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wada hadal hoose kula jira filla Soomaaliya isagoo qorsheynaya inuu ka baxo garabka Axmed Madoobe iskuna dhiiba dawladda federaalka ee Soomaaliya. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo kala hadlay mas'uuliyiinta waddanka Kenya in ciidamada Kenyaanka ah ee ku sugan deegaanada Jubbaland ay ka gacan siiyaan dawladda federaalka sidii loo soo qaban lahaa Axmed Madoobe. waxgaradka beesha Isaaq ee gobolka Sanaag oo u soo jeediyay xukuumadda Somaliland inay tallaabo adag ka qaado ciidamadii shaqaaqada ka sameeyay magaalada Ceerigaabo, iyadoo wararka soo baxayna ay sheegayaan in xaafadaha qaar ee magaalada Ceerigaabo ay shacab ku bilaabeen inay iskaga qaxaan. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya oo ka qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku bohoobay ururka bulshada bariga Afrika. haddaba muxuu halkaasi geeyay fiqi wararkeena ayaad ku daawan doontaan, iyo mas'uul ka tirsanaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo iska casilay xilkii eedeymo culusna soo jeediyay. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaha awoodda leh raalli ka noqday. diyaar garooba saaxiibayaal. aanse ku xasuusiye haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu bilaabay wada hadallo hoose oo uu la yeelanayo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya, isagoo qorsheynaya inuu waqtigani baneeyo garabka Axmed Madoobe, iyadoo waqtigani uu sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya hogaamiyaha Jubbaland ee dib iskugu doortay magaalada Kismaayo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo dawladda dhexe ee waddanka ayaa filla Soomaaliya ay maal iyo maskaxba u isticmaalaysaa sidii ay saraakiisha ciidamada iyo mas'uuliyiinta kale ee maamulkaasi uga horkeeni lahayd hogaamiye Axmed Madoobe oo sanado badan soo maamulayay dowlad goboleedka Jubbaland. madaxtooyada Soomaaliya ayaana saraakiil ciidan oo aad ugu dhawaa hogaamiye Axmed Madoobe waxay ku qancisay inay soo baneeyaan garabkiisa kuna soo biiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, taasoo inta badan ay ku guuleysatay isla markaana keentay in ka badan 300 oo askari oo ka tirsan ciidamada Jubbaland ay si rasmi ah ugu biiraan ciidamada xoogga dalka kana soo horjeestaan maamulka Axmed Madoobe. filla Soomaaliya ayaana hadda u muuqata inay u gudubtay mas'uuliyiinta kale ee maamulka Axmed Madoobe, iyadoo wada hadal hoose la bilowday madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamulkaasi Maxamuud Sayid Aadan si uu kaga hor yimaado hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ay waqti dheer soo wada shaqaynayeen. wararku waxay sheegayaan in wada hadallo hoose oo dhanka telefoonka ay dhex mareen mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, iyadoo dawladda dhexe ay ballanqaadyo waaweyn u sameynayso Maxamuud Sayid Aadan si uu u soo baneeyo garabka Axmed Madoobe ugana hor yimaado maamulkiisa ay hadda duulaanka ku tahay dawladda dhexe. madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku qancinaysa mas'uuliyiinta ku dhow hogaamiyaha Jubbaland inaysan dawladdu dib uga laaban doonin go'aanka ay ku soo qabanayso Axmed Madoobe, isla markaana ciidamada xoogga dalka ee maalmihii dambe la daabulay ay soo gali doonaan magaalada Kismaayo, iyadoo halkaasi laga dhisi doono dawlad ku meel gaar ah oo hanaanka doorashooyinka qof iyo codka ah kala shaqaysa dawladda dhexe.
mas-uuliyiinta dowladda dhexe waxay u sheegeen madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland in sidoo kale la beegsan doono xubnaha kale ee mas-uuliyiinta maamulkaasi si meesha looga saaro Axmed Madoobe iyo xubnaha kale ee la shaqaynaya. waxaana loo soo jeediyey Maxamuud Sayid Aadan in inta aanay xaaladu faraha ka bixin uu isku soo dhiibo dowladda federaalka iyadoo la siin doono ballanqaadyo waaweyn. macluumaadka ay warbaahintu ka heshay wadahadalka hoose ee Maxamuud Sayid Aadan iyo Villa Soomaaliya ayaana sheegaya in hogaamiye ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka soo jeeda gobolka Gado ay u badan tahay inuu aqbalo soo jeedinta dowladda dhexe maadaama hadda ay faraha ka sii baxayso xaaladda Jubbaland. ciidamadii uu isku haleynayay Axmed Madoobena ay bilaabeen inay si tarab iskugu dhiibaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. dhinaca kale wararka laga helaya magaalada Kismaayo waxay sheegayaan in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe qudhiisa uu ka shakisan yahay Maxamuud Sayid Aadan iyadoo ciidamo dheeraad ah la dul dhigay guriga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo isla markaana uu faray hogaamiyaha Jubbaland saraakiisha ciidamada inay si dhow la socdaan dhaqdhaqaaqa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamuud Sayid Aadan. hogaamiyaha dib isku doortay ee maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale xubnaha saraakiisha ee uu aadka ugu kalsoon yahay waxa uu faray inay la socdaan dhaqdhaqaaqa saraakiisha kale ee ciidamada kuwaasoo ka shaki qabo inay xiriir la sameeyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya kuna wareejinayaan ciidamada ay xukumaan ee maamulkaasi Jubbaland. in ka badan 300 oo askari oo ka tirsanaa ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland ayaa hadda isku dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maalmihii la soo dhaafay dowladdu ay ka dejisay deegaanka Raas Gamboni iyadoo ciidamadaasi ay ahaayeen kuwa loogu talagalay inay ka hortagaan duulaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana ciidankii ugu dambeeyay oo ka badnaa 200 oo askari Axmed Madoobe uu difaac ka galiyay deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose kuwaasoo iyaga iyo saraakiishoodiba ay la midoobeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. qoraal ay soo saadhay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaana lagu sheegay in inta badan ciidamadii Jubbaland ay hadda ku soo biireen kuwa xoogga dalka isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan howlgallada ciidanka qaranka ee lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada. hagaag ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaasoo uu kulamo kula yeelanayo mas-uuliyiinta sarsare ee waddankaasi kuwaasoo uu kala hadlayo arrimo quseeya xiisada ka taagan deegaanada Jubbaland ee u dhaxaysa Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka. ciidamada dowladda Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa ku sugan deegaanada maamulka Jubbaland waxaana sidoo kale ay joogaan magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedkaasi. dowladda federaalka ee Soomaaliya oo haatan waaran soo qabasho ah u goysay hogaamiyaha dib isku doortay ee Jubbaland Axmed Madoobe ayaa iyadoo ka faa'iideysanaysa xiriirka wanaagsan ee kala dhaxeeya Kenya waxay doonaysaa in ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanada Jubbaland ay ka gacan siiyaan dowladda sidii loo soo qaban lahaa Axmed Madoobe. sida warbaahintu ay ka soo xigatay xubno qayb ka ah wafdiga ra'iisul wasaaraha ee ku sugan magaalada Nairobi, Xamse Cabdi Barre ayaa wada hadallada uu la yeelanaya mas-uuliyiinta dalka Kenya waxa uu kala hadlayaa sidii ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS kuna sugan magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland ay u gacan siin lahaayeen ciidamada xoogga dalka ee maalmihii dambe lagu daabulay deegaanada maamulkaasi kuwaasoo doonaya inay gacanta ku soo dhigaan hogaamiyaha muddada dheer haystay maamulka Jubbaland Axmed Madoobe
kaasoo isaga qudhiisu xiriir wanaagsan la leh dowladda Kenya. madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka gacan siiyay Axmed Madoobe doorashadii lagu tilmaamay isku caanashubka ee uu qabsaday dabayaaqada sanadkii 2019 xilligaasoo Axmed Madoobe uu kaga guuleystay dagaal siyaasadeed oo uu la galay dowladii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana xilligaasi si weyn u gacan siiyay Axmed Madoobe ciidamada Kenya ee ku sugnaa deegaanada Jubbaland. balse xilligani 2024 isbedel weyn ayaa ku yimid dhanka diblomaasiyadda ee labada dal, iyadoo ay meesha ka baxeen labadii madaxweyne ee xilligaasi Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta, kuwaasoo xiriirka ka dhaxeeyay uu aad u xumaaday, keentayna in dowladda Kenya ay gacan siiso hogaamiyaha maamulka Jubbaland. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska ku guuleystay 15 May 2022 waxa uu durbadiiba dib u soo celiyay xiriirkii ka dhaxeeyay wadamada Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo arrintaasi ay ka wada shaqeeyeen madaxweynaha loo doortay Kenya William Ruto. xiriirka u dhaxeeya labada wadan ayaa haatan mid aad u wanaagsan, iyadoo heshiisyo kala duwan ay dhex mareen Muqdisho iyo Nairobi. iyadoo laga faa'iideysanayo xiriirkaasi wanaagsan, Xamse Cabdi Barre ayaa hadda ka codsaday dowladda William Ruto inay ka gacan siiso sidii meesha looga saari lahaa hogaamiyaha muddada dheer ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, kaasoo diiday inuu qayb ka noqdo hanaanka doorashooyinka qof iyo codka markii ugu horeysay looga hirgelinayo Soomaaliya. inkastoo ciidanka howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ay horey u sheegeen inay dhexdhexaad ka yihiin xiisada siyaasadeed ee ka taagan Jubbaland, haddana lama oga in hadda dowladda Kenya ay aqbali doonto codsiga dowladda federaalka ee inay ka qayb qaadato soo qabashada Axmed Madoobe, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in dowladda federaalku ay ku hanjabayso in haddii aysan Kenya taasi u hoggaansamin la joojin doono ganacsiga qaadka ee sida maalinlaha ay malaayiinta dollar uga macaashta dowladda Kenya ee la keena deegaanada Soomaalida. waa tahay waxgaradka gobolka Sanaag ee beesha Isaaq ayaa ugu baaqay xukuumadda Somaliland inay tallaabo adag ka qaado askartii ka tirsanayd ciidamada Somaliland ee shaqaaqada ka geystay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag, halkaasoo imika laga soo sheegayo xaalad kacsanaana. waxgaradka beelaha degan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo ayaa ugu baaqay in laga hortago cid waliba oo horinaysa colaadda gobolkaasi, isla markaana doonaysa inay qalalaaso iyo xiisad ka rido magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag, halkaasoo magaalo la wada degan yahay beelo kala duwanna kulmisa. waxgaradku waxay ku eedeeyeen askar ka tirsan ciidanka Somaliland ee ku sugan magaaladaasi inay qayb ka yihiin hurinta xiisada si halkaasi ay uga dhacaan colaad beeleedyo soo jiidaha dhibaato xooggan. dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada Ceerigaabo waxay sheegayaan in xaafadaha qaar shacabku ay bilaabeen inay iskaga qaxaan maadaama ay sii xoogaysanayso saansaanta colaadeed ee ka jidha gobolkaas iyo magaalada xarunta ee Ceerigaabo, iyadoo walwalka taagan uu yahay in beelaha Warsangeli iyo Dhulbahante ay sameeyaan ficilo ay uga jawaabayaan shaqaaqooyinka ay halkaasi ka geysteen ciidamada Somaliland. ciidanka Somaliland ayaa dhowr jeer dad shacaba ku dilay gudaha magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag, arrintaasoo si adag uga hadlay maamulka kumeel gaarka ee SSC Qaatumo, fadhigiisuna uu yahay magaalada Laascaanood. hanjabaadihii ugu dambeeyay ee ka soo baxay maamulka SSC Qaatumo
ayaana muujinayay inay qaadi doonaan tallaabooyin jawaab u ah ficilada ciidanka Somaliland ay ka sameynayaan magaaladaasi. wararku waxay sheegayaan in xaafadaha qaar ay shacabku barakac bilaabeen, kuwaasoo ah meelaha laga cabsida qabo in xiisada ugu horeysa ama dagaaladu ay saameyn ku yeeshaan. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Danjire Axmed Macalin Fiqi ayaa Soomaaliya ku matalay shirkii caadiga ahaa ee 46aad golaha wasiirada dalalka xubnaha ka ururka bulshada bariga Afrika, kaasoo ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. shirkani oo ahaa mid muhiim ah ayaa diiradda lagu saaray arrimaha gobolka oo ay ka mid yihiin ganacsiga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, isku socodka xorta ah ee badeecadaha, nabadda iyo amniga. wadahadaladani ayaa ahaa kuwa muhiim u ah xoojinta isdhexgalka iyo kobcinta iskaashiga dalalka xubnaha ka ururka bulshada bariga Afrika ee EIC. shirka golaha wasiirada ee EIC ayaa waxa uu gogol xaar u yahay shir madaxeedka 24aad ee caadiga ah ee madaxda wadamada bariga Afrika iyo munaasabad heer sare oo loogu dabaaldegayo sanad guurada 25aad ee EIC. ka qaybgalka firfircoon ee Soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqayaa sida ay uga go'an tahay isdhexgalka gobolka iyo hamigeeda ku aadan inay si rasmi ah ugu biirto ururkaasi. dabayaaqada sanadkii hore ee 2024 waxayna sidaasi ku noqotay xubintii 8aad ee urur goboleedkani, iyadoo haatan xubin firfircoon ka ah ururka bulshada bariga Afrika. la taliyaha sare ee arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Shamse Cabdulqaadir Daahir ayaa shaacisay inay iska casishay xilkaasi. Shamse oo waraaqaheeda iscasilaada ku socotiisay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay sheegtay in iscasilaadeeda ay timid kadib markii ay aragtay cadaalad darro baahsan, ku takrifal awoodeed iyo faragelina joogta. anigoo ah Marwo Shamse Cabdulqaadir Daahir ahna la taliyaha sare ee arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaan halkani ku cadeynayaa inaan si rasmi ah iskaga casilay xilkii aan ka hayay xafiiska kadib markii aan arkay cadaalad darro baahsan, ku takrifal awoodeed iyo faragelina joogta, duudsiinta xuquuq iyo caaburin shaqo oo la xiriirta shaqadii la ii igmaday, ayay Shamse ku tiri warqadeeda iscasilaada. Shamse ayaa sidoo kale waxay sheegtay in deegaanka ay ka soo jeeda ee Jubbaland lagu hayo beegsi isla markaana lagu dulmiyay xuquuqdeedii shaqo ee dastuuriga ahayd. waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii aan ka wada shaqeynay xafiiska ee sida niyad samida leh ila shaqeeyay inta aan xafiiska joogay, ayay tiri Shamse oo ahayd la taliye sare oo ka tirsaneyd xafiiska ra'iisul wasaaraha. Shamse oo qayb ka noqonaysa mas'uuliyiin ka soo jeeda Jubbaland ee iscasilay xukuumadda Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay u dulqaadan weyday beegsiga sida gaarka loogu hayo bulshada maamulka Jubbaland oo ay sheegtay in si sharci darro faragelin loogu sameynayo maamulkooda. dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa kala furtay kadib markii xukuumadda federaalku ay si adag uga hortimid dib u doorashadii Axmed Madoobe, iyadoo waaran soo qabasho ahna u jartay Madoobe kadib markii ay ku eedeysay faldambiyeedyo ay ka mid yihiin khiyaano qaran. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta. nabadgelyo.